السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودكاستيga markaan toos u galeena ayaan goobe maanta martii ugu ah oo isla wada falaqeyn doona guud ahaan ayaan marka hore ku soo dhaw podcastingan kugu soo dhaweeyo aad iyo aad u mahadsan tahay dhawahay marka ugu horeysa waxaan isleenahay wax yar hadaan dhageystayaasha fahansiin lahayn waa kuma ama waa qofma ayaan hadii aan leeyahay bismillah ayaan anu soo koobaya magacaygu ayaan Axmed Maxamuud ayaan goobe waxaan ahay hooyo degan shopping waxaan u maleynaa muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan waalidnimada marka qof shakhsi ahaanteed intaas oo ku soo koobi insha Allah taala ma intaas naga badan aadi farxad ii tahay inaan ku arko waxaan isleeyahay marka maanta barnaamij xoogiisa aan ku saari doonaa magacaan u bixina barnaamijku ahaa maxaa u soo joogto maxaa xasuusataa maxaa ahayd waxyaabihii kugu xasuusta fogaa marka u fiiriso bulshada la noolna kaleete bulshadeenka Soomaalida markii la dhaho kaleete oo muddo ahaan wadankan axbaar ay joogtay maxaa kugu xasuusta badnaa wallahi hadaan xusuus iraahdo waxa iigu xasuusta badnaa ilaa maantana igu qaalisan waxa weeyaan inaan nasiib u lahaa inaan u soo joogay wadankeena nabada Soomaaliya nabada Soomaalidu isjecel yihiin yani waa xusuusta ugu weynaan mar walba qalbigayga ku adkeeyo jeclahayna inay tahay mid ubadkayga iga dhaxlo wadan nabada iyo Soomaali isjecel aadaweyn ayadaaba ka weyn wax walba ayaan marka dib u fiiriso marka 10 sano ka hor Lean Shopping ama Stockholm ama Sweden oo kale marka fiirisid Soomaalida deganeed iyo maanta waxyaabo badan isbedelay hadda dib u fiirino oo kale hadda waxa jira platform inta badan maxaa la informationada aan kula wadaagtiin oo kale Soomaalida kale inta ku wada nool oo kale oo admin ka tahay maxaa isbedel asdii kartaa marka alxamdulillah horta markii sano ugu dambeysay yani wax badan uu iska bedelay bulsho ahaan wali hadii loo fiiriyo waxyaabahanayto oo social media ay dhahan maanta qof walba bini aadan way u sahlan tahay information inuu helo waxa uu doonaba ha noqotee waxaan xasuustaa xilligan wadankaanayta imid inaan xitaa heli jirin yani telefoon aan kula hadlo waalidkay oo ay dhowrkii biloodba mar aan heli jiray warqad maanta toolana wax kasta iyo meel kasta qofku uu joogo waa kula hadli kartaa hadday noqoto qofka inuu yani gudbiyo fikradihiisa hadday noqoto kaalmeynta waxay doontaba ha noqotee 10 sano ugu dambeeyay wax badan iska bedelay aadaweyn waxaan xasuusanahay muddooyinka ugu dambeeyay markaan dhahayo mar walba platformkan oo kale hadda muuqaalkiisa dadkan way arkayaan Soomaaliska rosta ama codka Soomaalida la dhihi karo sax waxaa sameeyeen tabarucaad oo kale dadka waxba isugu aruurisaan meel markii biidaadu ka dhaco kale markii meel qasaaro wax ka naco Soomaali inta badan isku duuban waa arkaysaa sida contributionka u soo sameeyaan oo kale guud ahaan hal mar ma noo soo koobi kartaa markii qaab noocee wax u sameeyeen Soomaaliska roster yani ma sha Allah waxa weeye meel dhalinyaro badan 8,000 iyo dhowr boqol dhalinyaro u badan ee isugu timid dadkeena waxaan u maleynayaa oo weyn waalidka way ku yar yihiin dhalinyaro badan baa ku jirta u baahnaa meel ay ku kulmaan yani meel walba oo maanta la isugu tago dad kale nala wadaaga waxa la raadiyay oo dhalinyaro soo fikirtay oo soo abaabishay meel oo isugu yimaadaan dad Soomaaliya meeshaas to free aan u nahay saan doona inaan wax u wada falanqeyn karno hadday noqoto dhanka yani waxbarashada hadday noqoto in oo la iskaalmeeyo waxay doontaba ha noqotee marka dhowr jeer oo aan qabanay dhibaatooyin waxaan aragnay yani baahiyo dadkeena ku dhacay wadanka abaariya jiray daadad maray furmeen sawirada markaan aragnayna qalbiga wuu naxanuun oo waxaan dad Soomaali yani ma sha Allah Soomaalida dad jecel weyn marka waxaan maxaan sameyn karnaa oo dadkii uu ku caawin karnaa marka saasay ku timaado inaan dhowr jeer sameyno maxaa la dhahaa lacag aruurino alxamdulillah maadaama dadka ku jira groupka ay yihiin dad aad noo aaminsan way noo sahashay way noo fududaatay inaan lacag badan qabano oo aan la qaybsano dadka walaalaheena waxa kale todo jira lacag kale todo aan u aruurinay dhowr family oo dhibaatooyin ku dhacay oo carruurahooda la dilay oo kale wadanka gudihiisa taasoo de qof walba oo Soomaaliya u dareemay dhibta haysata waalidkaaseeti macnaheedu maaha lacag la'aan inay hayso familka laakiin waxaan doonaynaa inay ahayd in aan tusno dad Soomaali ah oo ka fikiraya ama dhibta la qaybsanaya inay jiraan aada weyn dhaqan ahaan markii loo fiiriyo Soomaalida weligeed dabacadaas way ka simnaado
oo markii dhinacaas loo fiiriyo waa dad gob ahaana looga tiriyaa markii aad wax iyo dhacaan aad oo kale waa dad isu hufan waa laakiin is leedahay haba ahaato dhinaca jileeceena markii loo fiiriyo ama dhinacan ka dabacsannahay waxaan nahay dad baraarugo inta badan markay wax dhacaan bilmatala markaad tusaale ku soo qaato waxaan xasuusanaya dhowr jeer waxaa aruuriseen lacago oo abaarihii daadadkii bilmatala haddaad dib usoo fiirin oo kale hadda beledweyn oo kale ee gobolka hiiraan oo kaleeto daadadka 2 jeer oo aan xasuusanaya aa wax aruurinaysiin marka waa kacnaa صح lemaana markii wax dhacaan lema kacnaa mistri ما taas dhowr jeer aan ka fikirno walaa xitaa group waxaa la sameeyey laga dhex sameeyey groupkaaseti ah group loo doortay inay ka falanqo ama ka wada hadlaan dhibaatooyinka hore noo soo maray ayan noqonin mar walba inaan baraarugno markay dhib dhacaan kuwaasetiyo yani xitaa loo soo qaatay caruur haddii la iska qaato group saas ahaa jira oo yani loogu talagalay inay mar walba kulmaan oo ka wada hadlaan dhibaatooyinka nagu imaan kara waddankaniti intaan joogno waxaan qaban karnaa sidaadan horta waaba lacag aruurinta xoogaa dhibti unbay dabooleysaa maahine dhibti ma xalinayso haddii la diro lacagta xagga ay tagto dadki waa helayaan laakiin dhibaatadii way sii socotaa weli marka saa sheegaysid yani mar walba waxaa fiican in laga hormaro dhibta intayn imaanin wadooyina la dhisaya wadooyinkii biyaha qaadaya way burburayaan sanadkan sida ay ahayd sanadka dambe tadan meesha unbaa la joogaa dhibti unbaa taagan marka dad badan way ka hadleen arrimahaaseti inkastoon weli xal loo helin laakiin in yacni laga hortago lacagtaneeto lagu bixinayo abaaraha inay u baahan tahay in lagu bixiyo wax kaleetood oo la geliyo waddankii aada weyn weliba maxaa la yidhaha waxaa la dhahay hadda lacagaha ugu badan oo la diro oo dadka soomaalida gudaha gaartan waxaa ka mid ah dibadaha looga soo diraa maalin waxaan la hadlayay wiil dhaqaalaha ku takhaso oo aadna uga shaqeynaya barnaamijyadan cd la shaqeynaya wuxuu yidhi dhinac markii loo fiiriyo waa positive oo dadku isdad iscaawinaya laakiin dhankan markaa fiiriso waxaa arkaysaa in dadki taagan yihiin baahidii maalin walba meesheeda oo aan laga gudbayn hooyaa tahay waddankan muddaa ku nooleed dhacdooyin badanaa waddankan ka dhaco ciyaal waalidiina ciyaal laga qaataa oo mar walbana somaliska roster aan ku arkaa xataa arrimahaas ka war wax ma ka samaysaan iyadan arrimahaasi shakhsiyan ahaan iyo Somalis Croster ahaanba wax waa ka sameeya Somalis Croster waxaan badanaa isku daynaa inaan dhibta timaado u raadino wax xalin kara because dhibaato markii lagu sheego dhibaatada intaad maqlaysid waxaa laga yaabaa mid ka weyn inay sii jirto badanaa waxaan isku daynaa inaan helno dad nagaga cilmi badan dhankaasta ama ha ahaado loo yaro ama ha ahaado maasha allah sosionom badana noogu jiro dadkan inta sharciyada soo bartaa ku jira groupka waxaan isku daynaa inaan isku xirno dadkaas iyo dhibta dadka ay ku dhacday annagoo aanan yacni arrintii annaga ahaan shakhsiyan sii dhexgelin maadaama waxaa fiican arrin adiga shakhsiyan haddaadan wax ka qaban karin in aad u dayso qof wax ka qaban kara marka badan waxaan isku daynaa inaan noqono dadkii u dhexeeyey qofkaas iyo dadka kaleetodoo la isku soo xiraayo waana samayseen oo arkay waxyaabo badanaa ka samayseen oo arkayo si fiican wado dhowr famil hadday noqoto ani ahaan waxaan deganahay magaalo waxaan isku daynaa badanaa inaan intayn dhibaatada dhicin aan kasii hortagno shaqooyinkayga waxaa ku jira waxyaabahan intay dhahaan frelder utbilding oo inaan u bixino waalidiinta xitaa casharo taas oo ka caawinaya inay meelo badan duldulaan ugaga imaan karaan ay iska daboolaan si fiican looma kala haro inta badan waa arkaa hadda magaalooyinkan waaweyn oo dhan markii wax ka dhacan inkastoo ay u badan yihiinba dhanka magaalooyinka waaweyn dhaliilo dhanka waalidiinta dhaliilo dhanka dowladda dhaliilo dhanka maamulka degmada la degan yahay dhinac walbay leedahay mar walbana baraarujintaasna muhiimay tahay dhowaan arrin cajiib ah weliba muhiim ah oona farxadeeda lahaanayso waxaa jira filin dumar loo bixiyey oo lasoo bandhigay filinkaas ma noo sheekan kartaa wax yar waa ii suurageli weyse inaa imaado been ma sheegaayo waa ii qorsheysneed laakiin howlo badanaa lahaa waa ii suurageli weyse laakiin waa lasoo bandhigay ballantiisana meeshaan ka arkay waa ka akhrina oo ujeeday wax yar ma nooga sheekeyn kartaa filinkaas wuxuu ahaa sababtii loo sameeyey si fiican filimkaniti waxaa la dhahaa dumar wuxuu ka yimid okhoti tiyaatar ah waxay la saxiixatay 4 tiyaatar ama 4 maxaa la contract ay la saxiixatay gabar la dhaho America
waxaa ka horreeyey kan gabar soomaaliya la samaysay farxiyo la yiraahdo farxiyo faysal reflecteeraad wiiliidnaad gabayo ay kusoo dhigtay marka afarta ay siiyeen waxay ahayd adiga xor u ahayd dhehen waxa aad rabtay inaad samayso laakiin contract ahaan ama waxay kala saxiixdeen 4 qaybood oo tiyaatar inay samayso waa la ila soo xiriirsiiyey Lynch Shopping waxay tiri hadda kore waxay samaysay gabadha farxiyo gabar dhalinyaro ahayd waxay kale todo samaysay xijaabis filin la dhahay ama tiyaatar la dhahay oo gabdho muslimiin oo dhalinyaro ah marka cidma doonayo dhalinyaro inaan wax la sameeyo tiri dhowr jeer aan dhalinyaro la soo sameeyay waxaan rabaa tiri dumar ilada ah wali dumarka Soomaalida ay tiri aan rabaa inaan sameeyo Stockholm deegaanka gabadhan waa la igu soo xiray waa la raadiyay oo waxaan la raadiyay dad la sameeyo filimka adi markii dambe dad badan ay u yimid oo xiiseynay haddana waa laga gabadha xooga oo yani arrimo kala duwan awgood markaas waxaan iri haddaan anigana ka gabadha yani waxa ma sii hagaagayo maadaama iyadina ay go'aan ku gaartay in ay dumar Soomaaliya la samayso waxaan u fikiray haddaan anaga samaynin dad kale tada naga samayn doona marka filimkaas fikradiisa ku yimid filimna ma ahayn fikrad marka hore waxay ahayd tiyaatar inaan soo jeedino marka arrintii markaan bilownay waxaa naga soo dhex galay corona marka iyadina waxay tiri weligana film aysan hore umayn samayn gabadhan intii tiyaatar untay samayn jirtay aad uga soo horjeedo film inuu noqdo laakiin maadaama fikradii ay ka heshay maxaa la dhahay toole wixii ku jira film tiyaatarka dhexdiisana ay ka heshay waxa go'aan lagu gaaray ama aan go'aan ku wada gaarnay inaan ka dhigno film filimka waxaa nahay 3 dumar ah 3 hooyooyin Soomaali ah wuxa uu ka hadlaayeen waa xaqiiqadii nolosheenii Soomaaliya sidaan ku soo kornay oo gaagaaban oo la soo gaagaabiyay yani maadaama tiyaatar uu yahay qof film ahaan markuu ku fiirsado waxa laga yaabaa xoga inuu dhahay ma faha si fiican uu soo fahmin laakiin tiyaatar ma ahaan loo soo sameeyay oo waxa waaye qaybo kala duwan oo la isu keenay wuxuu ka hadlaa noloshayadii markaan yareereen iyo habka aan ku soo kornay wuxuu ka hadlayaa wadankan markaan nimid wuxuu ka hadlayaa yani shaqooyinkeenii adii la imaantoole shakhsiyan waxa aan nahay oo ka hadlay waxaan ka hadlaynaa waxay tahay yani fikradda nagala haystay yani badanaa waxaa nagala haystaa dad wadan aan jirinba ka yimid yani xitaa carruurtayada halkan ku dhalata haddii la fiiriyo Soomaaliya maanta sida ay tahay bay u haystaan weligeed inay ahayd marka taan rabnay inaan tusno waxay ahayd Soomaaliya even anagoo 3 dumar oo kala duwan nahay nolosheedna way kala duwaneed iyadoo isu dhoweyd da ahaan waa isu dhownahay isku meelan kawligan ka wada nimid oo yani ama waa ku dhalanay ama waa ku soo kornay Muqdisho haddana nolosheena si u kala duwaneed oo yani imaanshaha halkan aan ku nimid way kala duwan tahay marka inaan nahayn dad nolol lahaa intaanan imaane yani wadankan intaynan imaanin dad nolol ku soo noolaa inaan ahayn intana dhibaato iyo dagaalo ayna keentay ee aysan ahayn dad u soo baxay yani inay Sweden naga fiican tahay Soomaaliya ay ka fiican tahay oo kaleeto waxay tuulo yar oo cabaar halkaas noo xigtay markii gabadha oo Swedisheeda maamaheeda waxay tiri muddaan deganaa waxay ka sheekeynaysaa waxay tiri Soomaalida imaatay tiri 80maadkii aan kula kulmay tiri Soomaali meesha markaas ay macquul ma aha markaas tiri Soomaalida waagaas imaatay Soomaali taajiriin ahaayeen tiri waa aamini waa waxay ka hadlaysaa wiil 9meedii soo galaa mar dambe la sheekay sheegay wuxuu yiri magaalada tuulada Stufosh Allah dad badan way yaqaanaan ma meel yar Stufosh marka dhinacan Farmland markaas waxay tiri marka ay istaagayaan waxay sida ma taqaan qof madax ah waxay ku leeyahay albaabku waa in aad ka furtid dharkooda waa in loo dhaqaa Sweden waa aragtay weligeed saas ay qof walba inuu asagu wixii sameeysto cunada waa in loo kariyaa marka waxay tiri waa yaabanahay tiri dadka intay ka imaadeen mar dambana loo sheegay tiri in ay dadkan Soomaali oo ganacsato ah oo muddadii kadib markaas meesha ka tagay marka dib marka uu fiiriso marka Soomaali waa Soomaali marka dib loo fiiro waa Soomaalida hore laakiin hadda wax macna nooma sameynayso magaca Soomaali marka maqlo waxa qof walba waxa kugu soo dhacay maalin dadaan weydiinay Swedish wale magaca Soomaali hadda waxa kugu dhacay burcadadeed wadan qarax ka dhacay exact waa wax la aamini karo 30 sano waana lagu tiraa moogtahay oo waxa jira meesha ku jira marka dib u fiiris marka filimka ama tiyaatar ahaan marka u sameeyeen reaction-kii ka hor dadka ka bixiyeen sidii dadku u fahmeen dadka
horta fiirsaday Swedish iyo dhalinyaro badan oo fiirsatay aaday ugu riyaaqeen inaan nahay saddex hooyo yacni oo Soomaaliya oo haddana yacni waqtigaaseetina intiyada waxaan ahayn waqti oo yacni nolosha iska dhiiri ahayd oo dhibaatooyin yacni familka xanuunyo cudurkan uu keenay waxyaabo badan oo saas ay jireen nolosheena saddexdeenaba marka inaan saddex maalmood gudahood aan ku sameeyno filin horta waxay la noqotay dadka oo yacni dhiiranaan gelinaysa dad badan intii oo filinkaas fiirsateen waxay aad bay uga heleen ani halkaas maalin oo ka hor maanan fiirsanin halkii maalin oo Stockholm aan tagnay aan fiirsaday xaqiiqda wuu fiican yahay oo waxyaabo badan oo kala duwan uu tusaya famil ahaan ad caruurteedoo kaleetood waxyaabo aysan iga ogeyn ay filinkaasi ka maqleen sababtoo xitaa nolosha markii xaggii weli haddaad nolol fiican soo haysatay waddankii waxay dhib kugu noqonaysaa mar walba inaad nolosha macaanay dib u xasuusato oo xanuun bay kugu reebi waxaan u malayn dad badan oo anoo kaleetood iila mid ah in ay xireen noloshoodii horeetood maadaama aysan boos ka banaaneenba inay xasuusto marka nolosha inta waa la yimid caruuraa la dhalay horaa loo socday waxyaabo badan oo waxaa jirta xitaa caruurtaada aan ugaga sheekaynaynin oo noloshaada khalifkaloodha isaga ahayd markii horeetood marka waxaan malayna waxay noqonaysaa wax dhalinyaro badanna ay ka faa'iidi doonto caruurta aan dhalnayna ay ka baran doonaan waalidkood wax masajka fariinta ugu badneedo marka gudbina waa noocaas marka bulshadii markaad u fiirisid bulshada Soomaaliyeed waxa la moogtaa bulshada dhagaha wax ka qaadato inta badan qoraaladii dhankaas xoog ana ma fiirin laakiin muuqaal ahaan marka loo tuso ama ay dhageystaan oo kaleeto way dareema marka ma malaynaysaa marka familo kale inay ayagana isku dayi doonaan inay qayb ka noqdaan mustaqbalka waxyaabaha kale tii ayagana filin ama noloshooda ka sheekeeyaan wacyigiisa ciyaalka xataa weeraan xataa ka faa'iidaan dhalinyarada badan horta dad dumar waaweyn ma garanayo inay yacni samayn doonaan laakiin waxaan u malaynaa dhalinyaro badan wayna jiri doontaa oo sii socon doontaa inay isku dayaan filima at least waxa iyaga shakhsiyan Soomaali yihiin because ciyaalo badan oo maanta waxaad moodaa inay Soomaalinimada si ugaga dhuuntaan sababtan waxaa keenaysa mujtamac ay ku dhex nool yihiin marka inay dareemaan yacni qof Soomaali haddaa tahay ku hanweyna waxa aad tahay oo yacni ay u dareemaan yacni Soomaalinimada maaha wax laga carare waa wax lagu faano waan rajeynayo kale waa rajada igu jirta waa may waa kula qabaa insha Allah wayna noqonay qofkan mid hadii loo fiiriyo maxaa la yiraahdaa aniga shakhsi ahaanteed haddaanan ogeyn meesha aan ka imid Swedish waaye wadankan uu leeyahay u yaqaana meelaha la meesha u dhow xitaa hadduusan wixiisa kala aqoon laakiin haddaan dhaho wadankan aan ku dhashay intaan ku soo barbaar inta wax ku bartay macnaheedu ma moogta waxaa tahay waa macnaheedu waxa waa meel kala ka timid wiil maalmood barnaamij yar oo SBT soo qaadatay arka wuxuu yiri warbixin ka sameynaysa wuxuu yiri 30 sano 40 sano hadda wadanka ku noolaado oo luqadii aan ku hadlaayo oo maxaa la dhaqankii fahmay oo ka shaqeeyo oo ku shaqeeyay wali ajnabi ah yiri yani meel la ii tirina ani xitaa hadii la soo korsado oo ciyaalkan adapteerka loo la soo wata taxta digiin hata mar walba waxa lagu firan oo kalarkii maaha Swedish ma meel kala ka timid salaasa markii waxa mataqaana gurigeena wax badan ka hadalnaa arintaas yani qofka inuu meeshii uu ka yimid iyo sinjigiis meeshuu ka soo jeedo oo ku hanwen yahay way fiican tahay laakiin tan oo xooga aan badan ka soo horjeedo caruurteedan aan badan uga hadalna waxay tahay tan la leeyahay Swedish waa inuu yahay kan midabka cad kaliya macnaheedu taas maaha ilmaha wadankaanid ku dhashay waa inuu dareemo inuu yahay isagoo ka midab duwan ka diin duwan inuu Swedish laftirkiisa uu yahay Swedishnimada badan Swedish waxay u haystaan iyaga inay dhaxal u leeyihiin qofkii jinsi cad oo indho bluega kaliya oo timo blonde ah haysta kaliya wuxuu yahay Swedish taasi si loogaga yacni fikradaasi loogaga qaado waa inay caruurta wadankaanid ku dhalataa ay haddii rabaan way yihiin Soomaali caruurteeda Soomaalinimada way ku faanaan haddana markay noqoto Swedishka ay la hadlayaan waa inay dhihi karaan Swedish saa u taanba waa u ahay because waxay noqotay Swedishka inuu kaaga horeeyo waxyaabo badan uu ku tartamo yiraahdo ana Swedisha adi waa timid waa inay ii mahad celiso micnaheedu taas maaha caruurteena meeshaan ku dhasheen waa inay dareemayaan wadanka ay joogaan laftirkiisa inuu yahay wadan iyaga leeyihiin waalidkoodna ugu soo tacbay yani marka imaanay 16 sano wadankan jiray caruurteed maanta waxa ay waxaan dareensanahay ilaahay ka soo ina aniga gaarsiiyay maaha Swedish ani wax uu yani caruurteed u gaarsiiyay
heerkanita ay joogaan maanta alxamdulillah anaa gaarsiiyey marka taas waa inay og yihiin adiga kan Swedishka ah hooyada iyo aabaha ayaa heerkaas ku soo gaarsiiyey ana kuwan dhala halkaas soo gaarsiiyey waana isku mid inaan u leenahay jidkaas ee tibaxay taasay keeni karta carruurta yacni inay xooga cunsurnimada kaga gabadaan laakiin haddii mar walba loo riixo ilmihii Swedish ma tihid waxaa ku dhacaya qalbi jab Soomaaliyiin waddanka Soomaaliyana ma yaqaanaan waxa laga yaabaa weligood inayn tegin kii ay ku dhasheen waxa leeyahay ma tihidin dhaxal ku soo dhaceen wayna dhacdaayo inta badan hadda waa aragta umaleynayaan markii wax dhacdo waxaa la yidhaahdaa waxaa ficilkaas sameeyey dad ajaanib oo maxaa la yidhaha outlandska ah laakiin Swedish aan ahayn mar walba xataa haddii uu yahay qof meesha uu u dhashay ama inta ku dhashaba lama kala saaro waana saameynteeda leedahay saa ka dhawaajiso waayo waa inay qofka uu dareemo waayo meesha uu ku dhaliyay uu ku dhashay uu ku noolyahay inuu fahmi karo ayadana muhiimay tahay dhibaatooyinkan dadkan dhalinyaro badan haysata jahwareerka dhalinyaro badan haysata maxaa keenaya waxaan Swedishka ay dhahayn identiteedka waa muhiim weeyaan qofka inuu is aqoonsado qofkeen ahay haddii Soomaaligii wadankii ka timid maalin walba xumaata laga sheegayo waalidkii markii ay ka hadlayeen wadankooda ay leeyihiin maxaa la lahayd tolo wadan burburay waaye oo siyaasadda Soomaaliya mar walba ay ka dhageysanayeen ilmihii wadan oo yacni aan hagaagsanayn inta markaad joogtina kalaaskaagii maanta afarta lagugu fiiqayo sidii inaad tahay qof yacni meel xun ka yimid oo kaleeto qalbi jabaa kugu dhacaya wayaan waalidka in ilmahooda adkeeyo dib aan usoo noqona marka waxaan arkaynaa caruuraha Soomaalida markii loo fiiriyo qaabo badan magaalooyinka waaweyn hadda Stockholm iyo Göteborg kale dhowr jeer hadda inta hadalka bilaaban waa ka hadalna xogaa yar si yari u dayacan yihiin markaa fiiris dayacaas maxaa isleedahay intuu ka imaada isleedahay ka hooyo ahaan walaadaya caruurtan Soomaalida haysata yacni meelo badan uu ka soo gelayaa saan dareemaya horta maasha Allah hooyooyinka Soomaalida gabdhaha walaalaya Soomaalida waa mar walbana waa ku dhahaa meelaha aan ka shaqeeyo yacni ma jiro naag ma umalayna inay jirto naag 3 4 5 caruur intay isku hayso kala geynayso oo yacni diyaarinayso oo hagaajinayso oo wada tabartaasiti laba iyagoo haysta dadkaanayta ay badana ka qayliyaan iisheedana way leedahay yacni qofka bini aadanka ah meequu isu qaybin karaa haddaad ilmihii cuntadiisii iyo wax walba aad ka fikirtid waxyaabo badan oo tugduleeda kusoo geli kara waa hooyada keliya ah familkii laba qofood ay joogaan oo yacni aabihii iyo ilmihiiba ay joogaan taaseed waxay u malaynaya waa laba qofood oo ilmihii u taagan laakiin badanaa dhibaatooyinka hooyooyin keli ah haysata waxaan dareemaya inay tahay tabardaro inayan yacni gaari karin waqtigooda usan u gaari karin heerka ay rabaan carruurtooda inay gaarsiiyaan taas haddaan kasoo gudubno oo u galnatay bulshadiina ilmaha yagii waxaa weeyaan waddankan way ku yacni dhibaataysan yihiin sababta keenaysana sababaha hadday taabanayaa ka mid ah xanaanadii lagu bilaabayaa madow waa tahay iskuulkiyaa lagu leeyahay meel ma gaaraysid oo hore u dhacday kuwa iskuullada ka shaqeeya macallimiinta inay ku dhahaan carruurtii meela gaaraysid ma sii jirto ama waxaasid intaa baran lahayd wax ka sahlanay dhahayn waxan maa baratid marka qalbi jabkaasitin ilmihii yacni wuu ku dhacayaa marka waxaan dareemayaa ilmaha yagii inay xoogaa yacni meel dhexe ay ku dhacsan yihiin luuqadiina ay muhiim tahay oo ilmo badan oo mararka qaarkood waxaan arkaa luuqadii hooyana aan ku adkayn tii waddankana aan ku adkayn kuwaasna meel dhexe kusoo dhacay because qofka haddiisan luuqad midna uusan xoog ku haysanin tay doontaba ha noqotee haddaadan luuqad buuxa aadan haysanin yacni waxaa noqonaysaa qof kala dhantaalan ilmihii hadduu dagaalamo waxaa luuqadii aqoonina keeni karta maxaa la dhahay hadduusan wax maqlaynin wixii la sheegayay inuusan 100% fahmaynaa jirta marka meelo badan oo duldulaal badan waa ka dayacannahay xaqiiqdii markaad dib u fiirin hadda magaalooyinkan Stockholm oo kaleeto dhacdooyinka ugu xumaan ka wada dhacay mar walba dilal Göteborg ma taqaana maxay dhihi jiray Soomaalida hore kudka guur oo waa qanjo u guurti waa mister والله وحنون ويان يعني دad waddankanati waa ognahay sababaha loo yimid waxay tahay amaan darteed qof meeshaan u yimid lacag ka soo siyaadso ma jirto waxa laga yaabaa qof walba inuu naftiisa ama nafta caruurtiisa u yimid waxa xanuuna yacni hooyo timid waddankan in ay ku weyso ilmaheedii intay xabad ka soo cararto xabad ay ku wadaan nasiib darro aad u weyn weeyaan
taaseetiin waxaan dareemayaa inay waxyaabo badan dhanka dowladda ay ka maxal ahayd oo la jilicsan tahay anoo wada eedeynin oo laftirkeena anaga yacni guud ahaan qaladka aan lahaan karno laakiin waddankaneeti waa iska ma garanayo waa waddan waxaa weeyaan dhibtii ay sahlan tahay dhalinyarada inay galaan ayse adag tahay si ugaga baxaan watiya dayton aan ka wada hadlayno ah ilmaha haddii waagii horeetood waayadan hadda tanta ilmaha badana waa la baaraa haddii wax qaldan la arko ama waxbarashada ku adkaato macallimiin extra la keenaa laakiin dhalinyaro aan garanayo hadda tanta oo 30 ku dhadhow iskuullada way ku xumaayeen marka iskuullada ku xumaayeen kalaaska 8aad markii la gaarayna waa laga fariistay qofka marka kalaaska 8aad qofkii kaga fariistay iskuul waddankaneet waxa xitaa kan dugsiga sare ka soo baxay aan helaynin shaqo iska badaawo qof dhalinyaro oo 8aad iskuul kaga haray marka waxyaabo badan ay keenayso qofkii markuu uusan dareensanayn inuu nolol fiican helayo wuxuu raadsanayaa nolol qaldan uu ku noolaan karo ayadaana sahlaysa oo ilaan meel soo dhow lagaa dhahay haddaa arkaysa meel kale oo waqti dheer ma gelinaysid doorkeedana iyo muhiimadeeda qaadan karta xitaa waalidiinta laftiga inay xoog badan geliyaan oo si allaale sidii ku noqon karto waa arkay dadaal uma yaro oo dhaqan celisaaba qaarkood loo sameeya waa la celiyaa waddankia lasoo baraa qaarkood waa reeraa loo sameeya qaarba waxbay ku dayaan ana waxaa aaminsanaa waalidiinta soomaalida dadaalkooday leeyihin dhaliishana way sii kordhaysaa maaqa meelay kasii kordhaysa laakiin dadaalkooda way wadaan weli waalidiinta waa dadaalaan tan dhaqan celiska haddaan wax yar ka iraahdo yacni ilmo wuxuu u baahan yahay ugu weyn waxa weeyaan waalidkiisa ani ma aaminsan waana ka soo horjeedaa ilmo inta la kaxeeyo waddan kaleeta inta la geeyo la dhaho dhaqanuu kusoo baranayaa adiga haddaa inta joogtid oo waalidka ilmaha dhala uu halkan joogo qofka dhaqanka baraya xagga yaa waay eede kasta adeer kasti awo kastoo joogiya ayeeyo ilmaha booska waalidka qof u buuxin kara ma jirto ma sheegin waalidka ilmihiisa la guura oo waddankii intuu la taga la soo jooga laakiin dhalinyaro badanaan ognahay jahwareer waxay kaga dhacday waxay ahayd halkana laga kaxeeyey ingiriiska la geeyey caruuro maxaa la kenya la geeyey kuwa soomaaliya la geeyey markii halkan lagu soo noqdayna dhaqankii waddankana way ilaaween wadamadii ay tageenna wax yaryaray soo joogeen waana muhiim ilmaha inuu dareemayo inuu leeyahay meel degaan ah xitaa guurguurista badanaa lagu dhihi ilmaha oo waddanka aad ku nooshahay guuristeeda badanaa lagu dhihi ilmaha way dhaawac u yeeshaa iska badaaba ilmo intaad kaxaysay 3-4 waddan aad kala geysay oo haddana dib halkan intuu ugu soo noqday waxbarashadii ka halaabaya oo ay saameynaysaa yacni qofka uu yahay shakhsiyana dhaawacmaysa xiriirka labada ilmaha iyo waalidka dhexeeya dhaawacmaayo marka waxyaabo badan aa u baahan in laga fakero waalid ahaan intaan tallaabo la qaadin guud ahaan marka intaana barnaamijka dhammayn maxaa kuu muuqanaya marka mustaqbalka markaa fiirisay caruuraha inta ku dhasho kale waalidiinta inta ku nool oo kale iyo markaan coblin ama ku xiran kale waddankii oo kaleeto maxaa kuu muuqanaya rajo ma kuu muuqata alxamdulilah waddanka sanadkii horeetadaan tegey anigoon 14 sano tegin markii ka horreysay 10 maalmood keliyaan soo joogay waxaa iiga soo baxay inuu ahaa waddan yacni fikradda halkan ciyaalka ka dhaadhacsan aniga xitaa iga dhaadhacsanayd waddanka yacni inuu baaba ahaa laakiin dhulal badanaa soo maray weligii aanan tegin sanadkii horeetood waxaana arkay inuu ahaa waddan hore u socda oo wax yar uu ka dhiman yahay tan waddankaaneytiina waxaan aaminsanahay alxamdulilah maantoola caruurta 10 caruur Soomaali meel hadday isugu timaado ugu yaraan 6 waa caruur wax bartay ama jaamacada ku jira ama ka soo baxay badanaa waxaa noo muuqda caruurta banaanadaas taagan laakiin oo yacni 2 ama 3 jibbaar waa caruur wax baratay ama u socotay inay wax barato caruurta Soomaalida rajo weyn waxaa iigaga jirta ah dad mustaqbalkooda u soo jeeda waddankaaneytina sababta maanta naloo tilmaamayo waa nagala horreeyey finishka naga horreeyey oo saa loo tilmaami jiray shileena lahaa la tilmaami jiray yacni dad badan oo naga horreeyo waxaa jirta farta lagu fiiqi jirin marka maanta xilligan aan joogno waa xilli Soomaalida farta lagu fiiqay berri laakiin waxaan noqonaynaa dad waddankaneyti wax ka ah haddaan ku talagalnay inaan waddanka joogno kii ku talagalay inuu waddankiisa intuu wax ka barta halkan ku noqdana wuxuu noqon doonaa qof xagga ku faa'iida oo waddankii ay ka faa'iido marka mustaqbalka wax fiican ay iiga muuqdo Soomaali guud ahaan gaar ahaan caruurteena aad iyo aadan kaaga mahadcelinaa ayaan waqtigaada qaaliga ah iyo waqti dambe ah anoo weliba dhowr jeer isku daya inaan kusoo qabtay laakiin ii socon weyse farxad ii tahay koley waxaan rajeynaa fikradahaas o dhan inaan ka wada faa'iidi doono
iyo qof إن walba شاء usoo الله joogay تعالى aad iyo aad آدي kaaga آد mahadcelin مع walaal سنتاي ذكرا آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة